gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Sharmaake Maxamed Geele iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa saaka soo gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana soo dhaweeyay wafdigani maamulka heer gobol iyo kan degmada ugu horeyntiina maayirka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Maxamed ayaa degmada Laascaanood ku soo dhaweeyay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland maanta farxad waxaan noo ah inaan halkan ku soo dhaweyno gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Sharmaake Maxamed Axmed Geele iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo uu kamid yahay agaasimaha guud ee hay'adda shaqaalaha deeq iyo xubno badan oo la socda oo komishanka ka tirsan hay'adda shaqaalaha ujeedada socdaalkooduna waxa weeye in halkan lagu qaado imtixaan 30 qof oo ka banaanaaday 7 hay'adood oo dawladda ka tirsan mar labaadna waxay leedahay taariikh lama ilaawana saad la socotaan waa markii koowaad ee gobolka Sool ama magaalada Laascaanood imtixaanka lagu qabtay in badan baynu ka caban jiro laama Hargeysa hoosta meel lagu xidhay ama meel kale lagu qaaday waa guul noo soo hoyatay yaal iyaguna ka soo qayb galay soo dhaweyntaasi ayaa ugu horeyn u mahadnaqay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha mudane Sharmaake Maxamed Geele waxayna ku tilmaameen gudoomiyihii ugu horeeyay si cadaalad gobolka Sool ugu soo gaajiyay saamigii shaqaalaha ay ku lahaayeen maamulka Soomaaliland halka waxaanu maanta isugu nimi inaanu ku soo dhaweyno oo aanu xog wareysano gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland iyo komishanka uu hogaaminayo oo u yimi halkan inay ku qaadaan imtixaan shaqaale dhan 30 xubnood taasoo ah sidii uu maayirku sheegay markii ugu horeysay gobolkan lagu qaado imtixaan shaqaale waanu soo dhaweynaynaa ilaahay baa mahad leh waxaanu soo dhaweynaynaa gudoomiyaha iyo wafdidiisa waanu ka wada hadalnay iyo hay'adda shaqaalaha waxaanu ka wada hadalnay imtixaanka wuxuu noo cadeeyay gudoomiyuhu si cadaalad ah annaga oo kitaabka Ilaahay sidana si cadaalad ah in loo qaado waxa meesha ka baxay barabugaandhihii barasaabka gobolka Sool Cabdi Khayr Dirir ayaa isaguna dhankiisa soo dhaweeyay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland waxaan ku sugnahay xarunta gobolka Sool Laascaanood sida ay sheegeen odayaasha iyo mas'uuliyiintii ugu horeysay horta mahad Ilaahay baa iska leh mahad labaadna waxa iska leh xukuumadda talada haysa iyo xisbi xaakimka asdaxadna waxaan siinaynaa gudoomiyaha dhalinyarada Sharmaake oo markuu halka yimi socdaalkiisa ugu dambeeyay oo bishii hore ay ahayd 17keedii aan ka wada hadalnay in la soo gaarsiiyo in imtixaanaadka hay'addu qaas lagu qaado gobolka taasoo aanu arno ka xukuumad ahaan iyo ka gobol ahaanba inay wax weyn ka taraso baahida ka jirta gobolka inay wax weyn ka taraso xiriirka u dhaxayn kara bulshada iyo dawladda oo naga aqbalay alxamdulillaah rabbil caalamiin 14 bisha ayuu ku dhawaaqay isagoo ah gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha ee qaranka gabagabadiina waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Sharmaake Maxamed Geele isagoo u mahadnaqay bulshadii soo dhaweysay kana warbixiyay ujeedada safarkiisa waftigan ballaaran uu hogaaminayo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Jamhuuriyadda Soomaaliland alxamdulillaah thumma salaatu wa salaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wa sallam ugu horeyn gudoomiyaha gobolka Sool gudoomiyaha degmada Laascaanood mas'uuliyiinta komishanka hay'adda shaqaalaha agaasimaha guud ee macadka shaqaalaha dawladda agaasimaha guud ee hay'adda shaqaalaha bahda saxaafadda odayaasha iyo cuqaasha iyo garaadada iyo madax dhaqameedka goobtan lagu soo dhaweeyay dhamaantiin marka hore salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh saaka aad baan ugu faraxsanahay inaanu joogno gobolkii garaadada gobolkii gunta weynaa iyo taariikhda lahayd Soomaaliland inaanu saaka imka soo gaadhno annagoo muhiimadaan u soconay tahay qaadida 30 kaalimood oo imtixaan oo sideen hore u xusnay wasaaradaha waaweyn dalka loo tartamayo haday noqoto wasaaradda madaxtooyada maaliyadda qorsheynta cadaaladda duulista baarlamaanka iyo maxkamadaha hoose iyo maxkamadaha sare in loo tartamayo maanta imtixaamo 30 qof ee ugu sareeya aynu geyn doono waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa madax dhaqameedka iyo salaadiinta iyo garaadada goobta nagu soo dhaweeyay na dareensiiyay yuhuun iyo qalbi wanaag aanu gobolkan ku nimid insha Allah taala maalinta sabtida 8 subaxnimo ayuu jaamacadda Nugaal imtixaankaas ka furmi doona hadii alla yiraahdo odayaasha dhameeyay nidaamka iyo hanaanka iyo hufnaanta loo marayo ballanta iyo ballanqaadka iyo sida imtixaankeenu u dhici doono sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala nin walba qalinkiisa oo ugu guuleysan doono Samiir Saciid Bile Muqbaaya xorta ee Bulsha TV Laascaanood